Leave a thumbs up if you like any videos, then subscribe the channel and press the bell icon to watch more latest videos very faster. bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka idaacadda risaalada hurtan idin heeso waxaa ugu waaweyn ciidamada dowladda oo toddobaadkan keliya muqdisho ku dilay ilaa iyo 5 qofood oo shacab ah xeeraleyaha qaranka oo sheegay in dacwad ay kusoo oogeen maraakiib si sharci darra ah kaga kalluumaysanaya xiibaha Soomaaliya 2 sano kadib maxaa iska bedelay shacabka muqdisho taageerada ay u hayeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo howlgal lagu soo qabqabtay xubno ka tirsan al-shabaab oo ciidamada dowladda ay ka sameeyeen deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose dowladda Soomaaliya oo shaacisay in baaris ay ku wado shakhsiyaad lagu helay musuqmaasuq taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo sheegay in ay dhiseen xabsiga ugu weyn Afrika dowladaha Djibouti iyo Masar oo ka wada hadlay horumarka wadanka Soomaaliya iyo qaramada midoobay oo shaaca ka qaaday in Sacuudiga uu hor istaagay baaritaan in lagu sameeyo dilkii wariyihii Sacuudiyaanka ahaa Jamaal Khashoggi duhur wanaagsan saaxiibayaal mar kale waa Jimco taariikhduna ay ku beegan tahay 8 bisha 2 ee February 2019 intii aad maqasheen waxa ay ahaayeen qodobadii wararka idaacadda risaalada duhurtan idin hayso markana isagiyo intaas ka dhameystiran ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan kaliya waxa ay magaalada tan Muqdisho ku dileen ilaa iyo 5 qofood oo shacab ah sida warbixintan uu ku eegayo waryaheena Maxamed Abuukar Dabaash dilalkii ugu badnaa ee toogasho ayaa toddobaadkan ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana dilalkaasi geysay askar ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya kuwaas oo badankoodna baxsado aan la soo qaban ilaa iyo 5 qof oo shacab ah oo isugu jira rag iyo dumar ayay ciidamada booliisku ay dileen xaafado kamid ah magaalada Muqdisho kuwaas oo saraakiisha booliiska ilaa hadda aysan ka hadlin dilkii u dambeeyay ayaa waxa uu shalay ka dhacay degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir askari ilaale ka hayay xarunta degmada ayaa toogasho ku dilay wiil dhalinyaro ah oo watay mooto bajaaj ayadana dilka kadibna askarigu goobtaasi ka baxsaday ciidamada ammaanka oo sameeyay howlgal baaritaana way ku guuldareysteen in ay soo qabtaan gacan ku dhiglaha inkastoo saldhigga booliiska degmada Yaaqshiid ay soo xireen askari kale oo loo haystay inuu fududeeyay baxsashada askariga iyo qorigii uu dilka ku geystay 6 bishana ku beegnaday maalinta Arbacada ayaa ciidanka dowladda Soomaaliya waxa ay dileen nin dhalinyaro ahaa oo goob ganacsi kaga furneeday deegaan ka tirsan degmada Yaaqshiid dilka ninkan ganacsada ahaa ayaa yimid kadib markii goobtiisa ganacsi oo ugu tagay askari ka tirsan ciidanka dowladda kadibna muran uu dhaxmaray halkaas oo xabad uu furayna uu ku dilay ninka ganacsada ahaa wiilka la dilay ayaa waxa lagu magacaabi jiray Shucayb Biibay wuxuuna meherad ganacsi oo ku lahaa isgoyska Tawfiiq degmada Yaaqshiid 4 bishan aan ku gudu jirnay ayaa ciidanka booliiska waxa isgoyska Banaadir ay ku tagtay nin wada gaari nooca raaxada ah kaas oo durbadiiba meesha ku geeriyooday ninka rasaasta lagu furay askariga dilka geystay ayaa la sheegay inuu rasaasta wadada ku furanayay si gaadiidka ambalaaska oo xilligaas isbitaalka Madiina u waday dad dhaawac ah oo ku dhaawacmay qaraxii Isniinta ka dhacay degmada Xamarweyne askariga dilka geystay oo isku dayay inuu baxsado ayaa waxa goobtaasi ku qabtay ciidamo kale oo dowladda ka tirsan oo goobtaasi ka agdhabaa waxaana askariga dilka geystay iyo waliba meydka marxuumkuba xilliga la geeyay xarunta dib-u-baarista ee CID-da 3 bishan aan ku jirnay ayaa askari booliis ah waxa uu degmada wada jir gaar ahaan suuqa weyn ee degmadaas uu ku dilay wiil dhalinyaro ah ku soo qaaday mooto bajaaj askariga ayaa iska diiday inuu bixiyo lacagta lagu soo heshiiyay markii hore ee mootaduna ku soo raacay ayadoona bajaajlihiina uu iska diiday inuu lacagtiisa uu ka tago taasoo keentay in muran badan uu dhaxmaro kadibna rasaas qaybta sare jirka uu ku furo askarigii halkaas oo ku dhinto wadihii mooto bajaajka askariga dilka geystay ayaa goobtaasi ka baxsaday ayadoo aysan wax dhaqdhaqaaq ay sameyn ciidanka dowladda oo halkaasi ku sugnaa 2 bishan oo ku beegnaday Sabtida ayaa askari booliis ah ayaa isgoyska Bakaaraha qaybta xigta degmada Howlwadaag ku dilay hooyo la yiraahdo Xaawo Sheeqow Faarax oo haystay 8 caruur ayadoona dilka kadibna askarigu halka uu ka cararay Muqdisho toddobaadkan ma jirin dilal ay geysteen kooxaha dowladda ka soo horjeeda ee baskoolada wax ku dila balse way dhaceen dilal badan waxaana geystay ciidamada dowladda ah oo hubkana u qaatay sidii shacabka ay u difaaci lahaayeen
xeer ilaaliyaha qarankana waxa uu sheegay in dacwad ay ku soo oogeen maraakiib si sharci darro ah kaga kalluumaysanayay xeebaha soomaaliya. dhanka kalena dowladda soomaaliya waxa ay shaaca ka qaaday in baaris ay ku wado shakhsiyaad lagu helay musuq maasuq, sida warkan uu ku eegayo waryaheena rijaal cabdi maxamed. xeer ilaaliyaha qaranka axmed cali daahir waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay dacwad ku soo oogtay maraakiib shisheeye kuwaas oo si sharci darro ah kaga kalluumaystay xeebaha soomaaliya, islamarkaana ay gacanta ku dhigeen qaar ka mid ah dowladaha caalamka. waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya xilligan dacwadaha ugu badan ee ku furan ay yihiin kuwo ku saabsan dhanka badda oo ku aadan kalluumaysiga sharci darrada ah. waxaa ka mid a for example hadda uu gacanta ku hayaa xafiisku maraakiib ka kalluumaysatay badaheena oo lagu qabtay waddan kale oo dacwad ay naga dhexayso anagii waddankaas kale in maraakiibtii kalluunkoodibna loo soo celiyo si aan maxkamadeena u saarno, ayagana ay leeyihiin biyaheena kusoo xadgudbeen, annaguna aan leenahay kalluunka saaran baddeena laga jilaabtay si sharci darra. waa dacwad hadda xafiiska ka furan oo runtii muxuu ahaa badanaana waxay u badan tahay dacwooyinka aan gacanta ku hayno hadda dacwooyin runtii khuseeya badaha khuseeya, illicit maaragtay drug la yiraahdo ama human trafficking waxa la yiraahdo, kiisas ah baan gacanta ku haynaa ayaga naftirkooda oo aan hadda qaarkood aan kiisaskooda ku haynaa gacanta. waxa kaloo jira xataa la dagaalanka muxuu ahaa ii sheegay dhoofinta dhuxusha oo runtii aad iyo aad muhiim noogu ah. wadamo kale ayaa dhuxushii la geynayaa, maraakiibtii dhuxushooda lagu qabanayaa. annagii wadamadii dood badan baa hadda noo taalla oo dacwooyin baa laga yaabaa inaan mar dhow aan ka furno. axmed cali daahir xeer ilaaliyaha qaranka waxa uu sidoo kale tilmaamay in dowladda soomaaliya ay xilligan ay dacwad ku soo oogtay mas-uuliyiin iyo sidoo kale saraakiil ciidan kuwaas oo lagu eedeeyey arrimo ku saabsan musuq maasuq. waxa uu sheegay inay ka go-an tahay in si guud loola dagaalamo musuq maasuqu maadaama mas-uuliyiinta hantidii shacabka ee lagu aaminay ay doonayaan inay musuq maasuqaan, isagoo sheegay in kiisaska ku saabsan dhanka musuq maasuqa ay aada u badan yihiin. musuqa 2018 kaliya go-aano lagama gaarin, kiisasku ha yaraadaan hadday rabaan, laakiin go-aamo laga gaaray way jiraan oo dad badan ay xabsigu galeen. waana dembi ka mid a dunuubta la galo oo buu ka mid yahay, laakiin isagu waxa uu u yahay aada loogu fiirinaya waxa waaye waa dembi taabanaya shacabka oo dhan, oo qof mas-uula oo ammaanadii ummadda loo dhiibay oo ku xadgudbay. inuu qaanuunka wajahaa waa muhiim waay. wuxuu bedelay perceptionka ah in muxuu ahaa ii sheeg qof kasta oo hantida dowladda ku takrifali karo isla markaasna uusan sharciga wajahaynin. waxaan aaminsanahay in tallaabo horey loo qaaday ahayd. weli kiisas baan gacanta ku haynaa oo musuq ah, kuwo kalena way imaanayaan oo hadda baaris ku socota hay-adda dambi baarista ama hanti dhowraha ah ama immigrationku hadda shaqooyin aad u badan bay wadaan naftirkooda oo ay dadka dambiilayaalka ay howlaha ku lug leh foojiriga iyo baasboorada waxaas oo dhan musuqa iyo ku lug leh. soo waad arkaysay shalay in lagu wareejiyey daraad in lagu wareejiyey 200 oo booliska ilaalinta canshuuraha ah wasaaradda. xukuumadda soomaaliya ayaa sanadkii hore waxay ku dhawaaqday howlgal ballaaran kaasoo ka dhana musuq maasuqa, iyadoo intii howlgalkaasi uu socday dadkii lagu soo qabtay ay ka mid ahaayeen wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya, mas-uuliyiin dekeda madax ka ahaa iyo sidoo kale saraakiil ciidan. waasantaa rijaal. gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare ayaa sheegay in howlgal ka dhacay deegaanka berire ee gobolkaasi lagu soo qabtay xubno ka tirsan al-shabaab iyo sidoo kale hubkii ay wateen. gudoomiyaha ayaa sheegay in ciidanka qalabka sida ay fashiliyeen, sida uu hadalka u dhigay, weeraro ay al-shabaab qorsheynayeen in ay ku qaadaan fariisimo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose. howlgalka oo ay ciidamada ka sameeyeen deegaanka berire ee shabeellaha hoose ayaa lagu soo qabtay 4 xubnood oo ka mid ah al-shabaab iyo sidoo kale hubkii ay wateen, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose. shabeellaha hoose inta badan waxaa ka dhaca duqeymo dhanka cirka ah oo ay fuliyaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka mareykanka laga leeyahay. sidoo kale waxaa jira in howlgallo qorsheysan ee ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladda soomaaliya ay ka sameeyaan gobolka shabeellaha hoose.
maxamed ibraahim bare ayaana waxa uu ugu baaqay shacabka ku dhaqan shabeellaha hoose in ay si dhow ay ula shaqeeyaan ciidamada dowladda ayna u garab istaagaan. waxaana uu sheegay in al-shabaab awooddii ay ku lahaayeen gobolka shabeellaha hoose maalinba maalinta ka dambeysa ay hoos usii dhacayso. madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxaa la doortay maanta oo kale sanadkii 2017. haddaba 2 sano kadib maxaa iska bedelay taageerada shacabku ay u hayaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo? waryaheena mustaf xasan cabdi ayaa warkan ku eegaya. xilli muddo 2 sano ay ka soo wareegatay markii la doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxaynu la hadalnay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya si aynu wax uga ogaano halka uu marayo taageerada ay shacabku u hayeen maxamed cabdulaahi farmaajo inta uusan noqon madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya oo ay la hadashay warbaahinta risaala ayaa waxa ay sheegeen in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uusan ka dhabin ballanqaadyo badan uu sameeyey markii uu doonayay qabashada xilka madaxtinimada soomaaliya. kalsoonidii shalay ee madaxweynaha doorashadiisa lagu qabay maantay boqolkii halkama joogo, waxaana u sababa faragelin iyo maamul xumo. dalkaani wuxuu u baahan yahay 1 islaamaana shareecada islaamka, 2 maxkamaddii dastuuriga ahayd, 3 golihii adeega garsoorka, 4 hay-addii la xisaabtanka musuqmaasuqa. intaas haddaan la helin aniga dowladnimo soomaaliyeed dowladan u soo shaqaynay odayahaan ahay. shacabka aad iyo aad ay u taageersan yihiin maanta dowladdii. weli waxay rajo ka qabaan inay dowladda wax badan qaban karto maadaama muddo ay u harsan tahay. shalay sacabtumii madaxweynaha ee dowladda federaalka soomaaliya loo doortay. maantana waxaan qabaa weli in shacabka uu ku jiro hami iyo inuu madaxweynaha ka gundhalin doono hadaladii doorashadii ololaha. madaxweyne farmaajo markuu loolanka soo galayay wuxuu ballaman badan shacabka u qaaday awgeed ayay sidii shacabka kalsoonida u qabtay uu qabi laayeen. waxaana ka mid ah markii loolanka ugu jiro wuxuu yidhi madaxweyne farmaajo labada jidadka xiran iyo waddooyinka xiran waa furaya. allahuma istacaan danaha bulshada soomaaliyeed ayaan qabanayaa. intiiba lagama hayo waayo waddooyinka intii furneed iyo mahane intii xirina hadda badan waayo intii furneed ayaa xiritaan loogu sii daray. marka uma malaynayo in baahidii horeenta iyo taageeradii hore oo dowladda loo hayay inaysan jirin walow ballaman taageeradii loo hayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya run ahaantii aad bay u jirtaa. shacabkana weli aad bay u taageersan yihiin. ka dhalinyaro ahaan madaxda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan ka aragnay macnaha waxyaabo badan ay noo ballanqaadeen runaantii badanaa ay fuleen badanaana ay weli hamigay ku jiraan. haddii aan ka dhawaajiyo waxaa jirtay dhalinyaro badan oo ku xayirnaa in wadamada dibadiisa ama xabsiga ku jiray ama libiya magafe iyo ay ku haasteen. run ahaantii waxaa jirta dhalinyaradaas inay madaxda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya hamigooda soo celisay ee waddanka dib ugu soo celisay. waxaa dhici karto dhalinyaro badan oo waddanka ku dhibaataysnaay ama qaarkood niyad jabsanaa waddanka niyad jabsanaa inay niyad u abuurtay ee waddanka ka dheerigelisay. waxaa dhici karta dhalinyaro badan oo waddanka joogay inay u samaysay motivation kuwaas oo ay ka dhigtay jaranaalo ama abaanduulayaal ciidan. run ahaantii waxaas dhihi karaa taageerayaasha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya run ahaantii marba marka kasii dambaysa aad bay usii kordhaysaa. waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan muqdisho oo aragtiyadooda ka dhiibanayay. 2 sano kadib waxaa iska bedelay shacabka taageerada ay u hayaan madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo. dowladaha jabuuti iyo weliba masar ayaa waxa ay ka wada hadleen horumarka wadanka soomaaliya. ubax maxamed nuur ayaa dhammaystiraysa warkan. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka masar sameeh shokari iyo dhigiisa dalka jabuuti maxamed cali yuusuf ayaa ka wada hadlay ammaanka badda cas iyo xaaladda wadamada geeska afrika. labadan mas-uul ayaa ku kulmay magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya xili ay isku diyaarinayeen shirka wadamada midooda afrika oo dhowaan ka dhici doono halkaasi. war ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee masar ayaa sidoo kale lagu sheegay in labada mas-uul ay ka wada hadleen xaaladda nabadgelyo ee bariga afrika
xiriirka jabuuti iyo eritareya horumarada ka jira soomaaliya iyo yeman iyo arrimaha amni ee badda cas. labada wasiir ayaa sidoo kale diiradda saaray muhiimadda ay leedahay ilaalinta xasiloonida gobolka iyo badda cas, iyagoo isla qaadaa dhigay sidii loo hirgelin lahaa barnaamijyo horumarineed oo wadajir ah oo ay soomaaliyana qayb ka tahay. waa mahadsan tahay ubax. halka warkaas aad kala socotaana waa idaacadda risaala ee muqdisho. ugu dambeyntiina sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in wadanka sacuudiga uu si weyn isku hor istaagay in si dhaba baaris loogu sameeyo dilkii wariyihii sacuudiyaanka ahaa ee jamaal khashoggi, kaas oo lagu dilay qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada istanbul ee wadanka turkiga. warbixin hordhac ah oo ku saabsan baaritaanka ayaa waxa ay sheegaysaa in turkiga aanan loo ogolaanin inuu galo qunsuliyadda muddo 13 cisho ah, halkaas oo ah goobta lagu dilay wariyihii sacuudiyaanka ahaa. khashoggi ayaa markii ugu wardambeysay oo la arko isaga nool waxa uu galay qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul bishii oktoobar ee 2 ee sanadkii lasoo dhaafay. khashoggi oo 59 sano jira ayaa waxa uu caan ku ahaa dhaleecaynta dhaxal sugaha dalkaasi sacuudiga maxamed bin salmaan, sidoo kalena waxa uu ahaa nin si dhow ula socda xaaladda boqortooyada wadanka sacuudiga, waxaana uu ahaa wariye maqaalo ku qora wargeyska maraykanka kasoo baxay Washington Post. sacuudiga ayaana waxaa lasoo wariyey in uu diiday in turkiga uu u gacan geliyo muwaadiniin dhowr ah oo ilaa iyo 18 gaaraya, kuwaasoo lagu eedeeyey in ay dileen jamaal khashoggi oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo sacuudiga ka tirsan ciidamadiisa. sacuudiga waxa uu sheegay in ay doonayaan in cadaaladda ay ku mariyaan gudaha wadankaasi sacuudiga, inkastoo turkiga isagana uu sheeganayo in ay tahay halka dilka uu ka dhacay wadanka turkiga, sidaas darteedna la doonayo in wadanka turkiga gudihiisa lagu maxkamadeeyo. guud ahaan waa naga intaa war wixii dalkay daafaca caalamka naga soo gaaray oo aad idaacadda risaale ee muqdisho kala socoteen saaxiibayaal. hase ahaatee ciddii uu seega ama dhex kala qabsataa mar kale waxay ka baaran kartaa bogga internetka-aan ku leenahay ee radio risala.com ama .net. idinna waad ku mahadsantihiin la socodka iyo dhageysiga warkayaga.